الله وبركاته. maanta sida caadada ah waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan horumarka nolosha iyo arrin muhiim ah rabo inaan soo qaato taasoo ah dadka badanaaba Soomaalida waa dad diintooda jecel oo aad loogu farxaa laakiin se waxay isku qaldaan dhaqanka iyo diinta iyo waxyaabaha diinta ay xoojiso iyo waxyaabaha diinta ay raali ka ahayn. marka haddii aad dhaqan ahaan u haysatid waxyaabo muhiim ah noloshu ah haddaa u haysatid inay diintii ka mamnuucday marka waxaad dhacaysaa in adiga noloshii in aad ka harto oo lagana yaabay in waxyaabo badan oo diintaada ku sahalsiin lahaa inaad barato inay khasaaro kugu noqoto. taas waxaa ula jeedaa waxa waaye in dadka badi waxay u maleeyaan in nolosha iyo diinta inay laba u kala saaraan. horumarka nolosha, shaqada, maaragtay waxbarashada, maalka, dunida, lacagta iyo diinta oo lagu dhaqmo quraanka oo la barto iyo xadiidta iyo maaragtay soonka waxyaabaha oo diinta ay nafareyso. laakiin waxaa muhiim ah qofka waxaan rabaa inaan soo qofka haddii asagoo gacanta midig diintiisa ku haysta kitaabkiisa gacanta bidixna hadduu ku shaqaysto oo waxyaabo badan uu sameeyo in ay maaragtay horumar lagu sii daro inay noqon doonto. maxaa yeelay dad badan ayaa waxay soo qaataan in almaalu walbanuuna zinat alxayaa. waa run way noqon kartaa waxa waaye haddii maalka aad shaqaysatay iyo waxyaabaha dunida ah hadduu ku sababo in diintaada uu ka horjoogsado. laakiin tusaale ahaan waxaan rabaa inaan soo qaato laba qofna inuu diintii aada u xoojiyey uu bartay oo xaafid alqur'aana laakiin kusoo koobay noloshiisa inuu dugsiga qur-aanka iyo maaragtay masjidka keliya laakiin uusan lahayn awood dhaqaale markaa uu hoos imaanayo qof kale dad kale iyo qof diintii bartay si fiican u bartay dugsi qur-aan soo dhameeyey kadibna bartay masjidkana ku xiran shantiisa salaadood dugta oo maaragtay aada isaga ilaaliya waxyaabaha uu ilaahay ka xaaraantimeeyey waxyaabahu farayna aada u wada asagoo sidaas ay tahay haddana wax bartay shaqaystay markii weliba isku dayay inuu noqdo qof maalqabeena. marka maalka ma ahan xaaraan, wuxuu xaaraan noqonaa keliya haddii habka aad isticmaalaysid iyo haddii waajibaadkii uu ilaahay ku faray. matalanba haddii qofka uu zaka iyo sadaqa uu ka bixiyo waxyaabahii dad badan uu ku saacido kadibna maalkii uu shaqaysto uu ku noolaado ma jiro wax dhahaya in qofka inuu gaari fiican ku noolaado inuu guri fiican dego markaa xaaraan ma noqonayso. laakiin haddii maalkaaga uu ka jeediyo diintii ama uu dadkii xaasid a u noqotid ama waxyaabo badan aad samayn weysa ayaa waxaa dhacaysa in marka maalkii unuu ku noqday in ziinatul xayaa uu ku noqday. marka labada qof waxaa awood badnaanaya marka qofkii dhaqaale ahaan xoog yeeshay diintiina raba inuu ku dhaqmo u barto iyo qofka diinta bartay laakiin dhaqaalihiisa gacantiisa eber ay tahay isku mid maaha. waxaa fiican oo awood dhaqaale leh oo dadaali kara qofka wax bartay shaqaystay diintana watay muhiim waay. marka taa waxa waaye waxyaabo badan oo maaragtay loo baahan yahay inaan isfahamsiinay ka mid tahay. waxaa kaloo meesha jira in horumarka nolosha inay u baahan tahay inaan ka fikirno waxyaabaha muhiimku ah. waxaan rabaa inaan soo qaato qiimaha uu leeyahay waqtiga qofka bini aadanka wuxuu ilaahay ugu talagalay maalintii 24 saac 24 saacna 8 saac hadduu qofka hurdo waa ku filan tahay 6 ilaa 8 saac. inta waqtiga soo hartay qofka hadduu kala qiimeeyo dad baa waxay u maleeyaan inay tahay shay gaaleed laakiin in la sameeyo takhtiid planning oo ah in waqtigaaga waqtina inaad faamilka aad siiso waqtina aad wax barato ama aad shaqayso waqtiga muhiimkaana aad diintaada aad raacato waqtigii kugu soo yaraanaya laakiin si effective ah ugu faa'iideysan kartaa. dadka nasiib daro Soomaalida ma qiimeeyaan mana tixgeliyaan laakiin haddii aan bilowno inaan waqtiga ka faa'iideysano waqtigana aan cabirno sida miisaan oo kale ah markuu nagu yar yahayna aan sii kordhino waxyaabaha effective aan ugu faa'iideysanayno waxaa dhacaysa inuu qofkii uu noqdo qof mashquul ah ilaahayna ku xiran kana faa'iideysta. waxaan rabaa tusaale inaan soo qaato dhacdo yar oo aniga goobjoog aan ka ahaa oo run ahaantii markii aan arkay aada uga naxay ana rabo inaan dhagaystayaasha maanta inaan la qaybsado.
waxa waaye maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan joogay dukaan aan rabay wax muhiima inaan ka gato, dad badanna ay rabeen inay ka gataan. dukaankii wuxuu ahaa zaxma, crowded, waa la buuxay, aad baa loo buuxay. ugu yaraan ilaa iyo 30 qof waa sugaysay, waxay ku jirtay saf. wadamadana sidaa la socotaan waxaa jira number lab ama lambar ayaa la qaataa, lambarka si loo kala soo horeeyo. dadkii marka waqti hore yimideen lambarka si ay u qaataan, waa la wada qaatay, waa soo wada daahnay dhammaanteen. aniga waxaan watay lambar 15, waxaa iga dambeeyay ilaa iyo 30 u gaaray. marka lambaradii dad walba waa la wada joogaa. Swedishka waxay caado u leeyihiin waqtiga si ay uga